السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. saddexdii bishii 11,447 ku beegan 20kii bishii afraad 2026. Shiinaha waxay xaqiijisay muhiimadda ay leedahay in la ilaaliyo amniga iyo xorriyadda maraakiibta ku socda marinka Hormuz, iyadoo ku baaqday in si degdeg ah loo joojiyo dagaalka ka socda gobolka. Waxay sidoo kale sheegtay in xasiloonida gobolka ay muhiim tahay ganacsiga iyo ganacsiga caalamiga ah, isla markaana ay ku dhiirigelinayso dhammaan dhinacyada inay doortaan wadahadalo iyo xal nabadeed halkii ay ku sii wadi lahaayeen colaad. Shiinaha ayaa maanta oo Isniin ah muujiyay walaac weyn oo ay ka qabto qabashada xoogga ah ee markabka xamuulka oo Iiraan ay leedahay, iyadoo sheegtay in xaaladda marinka Hormuz ay tahay mid aad u xasaasi oo adag, loona baahan yahay in la abuuro xaalad ku habboon si loo afjaro dagaalka. Wakaaladda wararka ee Shiinaha ayaa sheegtay in madaxweynaha Jinping uu carabka ku adkeeyay muhiimadda maraakiibta ka gudba marinka Hormuz, isagoo xusay in dalkiisu taageerayo xabad joojin degdeg ah iyo in diblomaasiyadda loo maro xalka khilaafka Bariga Dhexe. Dhanka kale, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa Axaddii ku dhawaaqay howlgallo ciidan oo badeed oo ay fuliyeen ciidamada Mareykanka ee gacanka Ammaan, halkaas oo Mareykanka dagaalka ee USS Esperance uu ku qabtay markab xamuul oo Iiraan leedahay oo lagu magacaabo Tosca, kadib markii uu isku dayay inuu jebiyo cunaqabateynta badeed ee saaran Iiraan. Donald Trump ayaa sheegay in markabkani uu dhererkiisu yahay ku dhawaad 900 feet uu diiday inuu hoggaansamo digniino isdaba joog ah oo ku yimid ciidanka badda Mareykanka. Sidoo kale, taliska dhexe ee Mareykanka CENTCOM ayaa xaqiijiyay in ciidamadiisu ay qabteen badda Carabta markab sita calanka Iiraan oo ku sii jeeda dekedda Bandar Abbas, iyadoo xitaa baahiye muuqaal muujinaya si loo qabtay markabka Tosca. Jawaabta Iiraan ayaa dhankeeda sheegtay in markabku uu ka yimid Shiinaha kuna sii jeeday Iiraan, iyadoo wakaaladda Tasniim ay tilmaamtay in ciidamada Iiraan ay weerareen maraakiib dagaal oo Mareykanka leeyahay, iyagoo adeegsaday diyaarado aan duuliye lahayn kadib howlgalka Mareykanka. Sidoo kale, xarunta militari ee Khatam al-Anbiya ayaa ku tilmaamay weerarka mid jebinaya xabad joojinta isla markaana ah burcad badeednimo, waxayna ballan qaadeen inay si dhow uga jawaabi doonaan weerarku kadib markii la hubiyo badqabka shaqaalaha markabka iyo qoysaskoodii. Ugu dambeyn, Shiinaha ayaa mar kale ku celiyay baaqiisii ahaa in la ilaaliyo amniga marinka Hormuz iyo in la ixtiraamo xabad joojinta u dhexeysa Mareykanka iyo Iiraan, iyadoo sidoo kale beenisay warar sheegaya inay taageero militari siinayso Tehran. Qodobka labaad, carrada dhaqaale. Qorshaha Mareykanka ee lagu xanibayo biyaha Iiraan. Carrada dhaqaale economic baggage waxaa qorsheeyay Mareykanka ku dhawaaqay qorshihiisa Mareykanka ku dhawaaqay bishii Abriil
2026 waa isla bishan kaasoo lagu beegsanayo dekedda iyo maraakiibta Iran si loo wiiqo dhaqaalaha halkan waxaa ku yaalo sharxaad. waa maxay qorshahani wuxuu ujeedkiisa yahay in la xanibo ganacsiga saliidda iyo badeecada Iran, in la beegsado maraakiibta loo yaqaano shadow fleet oo markab qarsoon ee Iran isticmaasho, in la qalqalgeliyo ilaha dhaqaalaha ee dalkaas. sida sharcigan u fulaa amaro maxkamadeed sida maxkamadda Washington qeexaya in maraakiibta qaado saliidda ee Iran ay leeyihiin hantida la xiriirta maalgashinta argixisada ama hanti musaadiri karo, sida loo fuliyey howlgalka ogolaanshaha bartilmaameedka la socdo maraakiibta satellite-ka iyo tracking systemka, cadaadis lagu saaro shirkadaha caymiska iyo diiwaangelista oo insuransiga, digniin kadib kabtanka markabka markii la qabto ayaa la soo wacaya, digniina loo jeedinaya. waxaa la dhahayaa ka soo qaad kabtanka markabka, waxaa loo dirayaa fariin rasmi ah oo qoraal ah. waxaa lagu wargelinayaa in shixnada la qabtay, joojinta interception. markabka dagaal ayaa hor istaagaya markii wuxuu sharcaya marka hore waa digniina message loo diraya ama fariin, marka dambe markabka hor istaagaya. waxaana la adeegsanayaa nalal xoog badan, isla digniinti oo badan oo loo qaylo degdeg, qaylo digniino codad ah, curyaamin aan dil ahayn. marka intaas fariinta loo diro, lala hadlo kabtanka, lala hadlo, nalal lagu daaro, markabka lagu horgooyo, ayaa rasaas intaas duu wax magaran ka qaban waayo ama magaranaysa istaagi waaya, matoorka lagu duqeynaya. markab qaar waxaa la beegsadaa matoorka si loo joojiyo dhaqdhaqaaqiisa. qabashada markii la qabtana ciidamada ayaa ismarkii kor u daato, shaqaalaha la xakameeyaa, maraakiibta waxaa loo jiidaa dekedda. wadahadallada oo fashilmay waxaan dhacay kadib sabab waa wadahadaladii u dhexeeyey Mareykanka iyo Iran oo ay ku lahaayeen Islamabad, caasimadda Pakistan, ayaa fashilmay. markii fashilmay maxaa dhacay? Iran oo xirtay marinkii Hormuz. Iran waxay bilaawday in marinka Hormuz ay xirto meel ay marayaan 20% maraakiibta adduunka. saameyn maxaa ka dhalan karo markii la xiro kadib? maxaa dhalan karo? sicirka saliidda adduunka oo kici karo, xiisad military oo sii kordhayso, ganacsiga labada dal, ganacsiga badda oo halis galayo, because markabka kasta soo maro waa la duqeynaya, markaas meeshaas ku bambasbaxaya, meeshaas ku baaba'aya, shaqaalihii wixii watay wixii magarhanti dhan meesha ku baaba'aya, ama Mareykan ha lahaado ama Iran ha lahaato ama markabka samar meesha. marka waxay noqonaysaa meel khatar oo ay noqonaysaa. marka walaalayaal waxaa rabay intaas inaan inga soo gabagabeeyo. waa in salaamaya. asalaamu calaykum waraxmatullah.